madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Gille ayaa waxa uu xariga ka jaray warshad samaysa sibirka deegaanka Cali Sabiix oo 100 kiiloomitir caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti ka xiga dhinaca waqooyi. warshadani oo ah warshad muddo 9 sanadood hawsheeda lagu jiray ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu sheegay inay faa'iido iyo ahmiyad gaar ah u leedahay shacbiga ku dhaqan degmada Cali Sabiix iyo waliba guud ahaanba dalkani jamhuuriyadda Jabuuti. waxaana warshadani oo dhismaheeda ay ka qayb qaadanayeen shaqaalo ajaanib oo aad u fara badan ay ahayd mid aad muuqaalkeedu uu yahay mid waxtar u leh deegaanka Cali Sabiix iyo dadka waliba ku dhaqan dalkani jamhuuriyadda Jabuuti. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ayaa mar uu ka hadlayay munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka Cali Sabiix waxa uu ka waramay sida warshadani ay iyadu ku suurta gashay iyo waliba hawsha warshadani. 9 sano ayaa mashruucani soo jiitamayay dhibaatooyin fara badan baa la kulanay bi'awni Ilaahi wa tawfiiqihi waxa noo suura gashay maanta in intii dharaartii aan furaynay ugu horeysay iyo maanta haddii intii noolay maanta nala joogan alxamdulilaahi rabbil caalamiin intii waqtigu ku sumi waayna allah u naxariisto. waxa uu sheegay ninkii mas'uulka ka ahaa Dr. Idris in waxa ilaahay dhigay macdan dhigay halkani uu dhigay sibirka daraadii oo qurahatay anoona mashaariicda kale ka hadlaynin ama macdanaha kale ee ku jira wadanka intaan anoona ka hadlaynin ka sibirka waxa dadka aqoonyahanka ama cilmiyahanadu ay yiraahdaan in 150 sano in la maali karo laga soo saari karo sibir buurtan carey iyo inta hareeraysa ee uu ka waramay hadeerta ilaahay mahadii weeyaan. waxa sidee loo baahan yahay mar walba maalgelin culus warshadaha kale ka culus weeyaan warshadaynta sibirku tamar badan u baahan qalab badan u baahan xirfad badan u baahan dhaqaale gooniya u baahan iyo tababar gooniyana u baahan. laakiin dalku inta anagu halkan imka aan ku hayno ama kartida warshadani ay tahay mustaqbalka waxa aan mashaariic leenahay kolka aan eegno in ay nagu filan weydo ayaa laga yaabaa. warshadani ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay dadka ku nool deegaanka Cali Sabiix waxayna si farxad leh ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiintii uu hogaaminayay madaxweyne Gille. Mikael Cabdirashiid Bare, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.